اللهم حريستي سيد محمد wuxuu ahaa sheekhi asaasay dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ee daraawish loo yaqaan waxa ay sokeeye ishayaba u qalsan yihiin inuu ahaa aabaha wadaniyada casriga ah ee Soomaaliyeed taasi waa xagga siyaasadda xagga maansadana wuxuu Soomaalida ugu jiraa halkii uu William Shakespeare Ingiriiska ugu jiro Dante Alighieri halka uu Talyaaniga ugu jiro iyo Abu Tayyib al-Mutanabbi halka uu Carabta ugu jiro wax badan ayaa laga qoray waayihiisii maansa iyo taariikhda sidaa darteed halkan ku dheeraan mayno Sayyid Axmed wuxuu kamid ahaa maantayahanadii silsiladan Harca Dheere ka qayb qaatay hayeeshee sida loo maleyn karo ugama u qayb qaadan markii laga eego xiriirka toleed ee labada dhinac waxaa loo fili karaa inuu qamaan bulxan hiil u yahay isaga oo sida qamaan isaguna ogaadeen u dhashay hase ahaatee taasi run maaha inkastoo ay malaha qoon tahay wuxuu sayidku ahaa qadiyad aad u culus min dusha u ritay sidaa awgeedna ka hanweynaa qabiil qurax in loogu abtiriyo hadiga goor maansadiisu waxay u adeegi jirtay qadiyadda daraawiishta iyo jahaadka ciddii daraawiish la jaarihi gabayadiisa way ku ammaanayd ciddii ka soo horjeedayna way ku cambaaraysnayd midaasi nin koox ama qolo tii ay doonto ha ahaatee diiwaankiisa gabayada ee daabacan waxaad ku arki kartaa qof ama qolo mar ku ammaanan mar kalena ku caayan taasina waxay ku xiran tahay xiriirka uu qofkaas ama qoladaasi ay daraawiish la lahayd maalinta uu gabaygii sayidku tiranayo ogaadeen qoryaha ka mid ah oo Subayr Cabdille la isku yiraahdo waa reer Isaaq iyo reer Cabdille ayaaba ka mid ahaa tolalka Soomaalida ee weligiiba uu colaada weyn laabta ugu hayn jiray taasina waxay ku sallaxayd dabayaqadii qarnigii 19aad markii inta uu dhex tegay uu ka doontay ciidan uu jihaadka ku galo dabadeedna waa tii la iskhilaafay gurdumi meesha la yiraahdo ee haladigeed ku taal waatay shirqoolka ugu maleegeen waatay isku dayeen inay dilaan dabadeedna intay isagii moodeen waa kuwii dilay wadaadkii la oran jiray Aw Cabbaas ee ay wareega ahaayeen kala kacay gurdumi waa tuu dhacay ee la kala ufooday isaguna waa kii gundabooya ku dhigay ee ragga badan ee doorka ah ka laayay iyaguna tay xabashi ku soo hogaamiyeen waa kuwii ku soo duulay daraawiishta badan ka makalay kuna qasbay inuu nugaal dib ugu noqdo sanadkii 1900 waa nimanku maanka ku hayay kolkuu lahaa sida garow haruur baan kurtood guran ogaadeen ee garmaamaha haddaynan ka dayn goor allaba jooga insha Allah waa gurahayaan sida galmeereeda guraasiyo iljeex waa la qaban gooshka haatana ee malahayga waa lagu galgalan gaanka reer dalale gaas baa ku caran reer Subayr gobosho weyntii waa nimanku daraawiishta ku gubaaminaya markuu lahaa reer dalal wariyaa doonayo duurlan bixinaya dad iyo duunyo yaa reer Subayr damo ka siinaya yaa diinta ee biyo sharciga dilay oo raacay wuxuu dagaha Haaruun ma degin eelkii daratoole danood soo guraasiyo iljeex deera kuma foofin soo daahirkii oo Cabbaas deyn ku maqan maaha deyrtiyo dagaalaba ma waan la isdul taagaynin duntigii ogaadeen ma waan diiq la gelinaynin dooyada ma waan lagu simayn adada daanteed naarta la yiraahdo saqara ee naaraha ilaah ka mid ah waa kii u bashaareeyay oo ugu bashaareeyay reer Subayr nimanka la yiraahdo inay ku soo socdaan oo ay dhalgi doonto markuu lahaa ma Subayr Cabdille inta diinta sidaysiyo intii toobada sheegtaa ka subxaanallah ya saqara lagu geyn waa nimanku ku lahaa markuu doonana haddana uu ku faanayaa ogaadeenka oo inuu yahay oo markuu caaluuxo kale iska celinayo waa kii lahaa ogaadeen haddaan ahay dad uu amar ku reeyaay oo ubaxa baarkaan hiyo awta haashimahay abtaysiinay waxay gashaa odaya waaweyn hatiga qudhooda ama qaybo waaweyn oo ka mid ah ayaan ogaadeenka uga duwanayn maansadiisa ayuu ku cambaarin jiray markii ay danta daraawiisheed sidaa ku jirto markii aysan ku jirin wuu ku koolkoolin jiray gabaygiisana Harca Dheere ee soo socda wuu kula daadagayaa waxaase jiray mar kale oo uu si la yaab leh gabay kale ugu ammaanay oo isaga oo markaas jecelnaya gabayaagii la oran jiray Cali Jaamac Haabiil ee habar awale Ciise Muuse oo hatiga saxiixiisa midkood ku caayay isaga oo Cali Jaamac ka celinaya suudiya koolkoolin ah oo gabay uu tiriyay ku jiray ayaa waxa ka mid ahaa oo hatiga ku ammaanayo Xuseenow ninkii hagar yaqaan waa habaar qaba ee ninna hayagi maaye run baan heeg u mariyaa hatina maana qoon baa ku yaray hadalka qaarkiisa waa niman hormud wada ah iyo hanadyo waaweyn waa nimanka qaybtoodu tahay haashirka kore ee waa nimanka deeqay hanbaday hibe ilaahay waa niman gobba lagu hoostaa lagu hagaagayo waa niman haleeliyo horweyn heelka buuxsaday waa niman xariiro huwan oo hoga ku laafiyoon waa nimanka haashaarka gole marada haafayne waa nimanka
dooyuhu hindiga uga himbaartaane waa niman haruur iyo bariis hoyga loo dhigaya waa nimanka aan fuuqayay timirta hoostaale waa niman hingaar lama watee haybad guursadee waa niman hablaha ay qabaan haracleeyaane sida heegadoo curatay bay shuqul hilaacaan marna waa kiisaas u kolkoolinayay kolka haddaan usoo noqdo gabaygiisan halac dheere ee inagu soo fool leh waxaynu odhan karraa labada qolo mid uu la jiro cid garan kartaa ma jirto ogaadeenka iyo haftigaba wuu ugu daraanayaa inkastoo laga dareemi karo xoogaa xodxodo ahoo qamaan iyo qolada uu ka dhashay ujeeda isagoo jeclaa inay daraawiish ku soo biraan wuxuu ku hungurigeliyey geel badan iyo xoolo aad u fara badan oo uu isagu siinayo una hayo qoladii ay aadeen ee reer hobyoodka ahaydna aysan u hayn maxaa iyagoo wax ma haystaan buu leeyahay oo anaaba dhacay oo xoolihii ka dhameeyey bal maxay ka dooneen markaasuu leeyahay aniga hadday ii imaan lahaayeen iyagoo halacoodana wata iyo had badan oo ciiddaas anaan marna hiif iyo haaraan aan laga maqleen una gabiyaan markaa wuxuu yidhi sayidku hungurigu subayr wuxuu ka rayday hogobyo shaydaane mar haddaanu hedheer lahayn ama hoggaan ceja wax hubaala inuu kaga iman haradii ciide hawiya iyo daaroodba waa haybka gooniyahe waxaan habaaro ilaah helay boqontiye bal maxaa hobyow dhigay arligu kala hoyadroon hartigaba wax badan baa ku nool hilibugareede koluu hilaadoo kale noqdo ibilka haneedo huwan moo u kaxo kuma qadeen hodan qabeenkii in hamuunta ka biinhayaa lagu hadoomaye mar hadduu hadaadu muxarago haybadeed malahe ma waysoor yadiin heli karaan ma hagranayo hamba kaa sugya ama hohay kugu hagugyaaba hantii niman lahayn looma tago holaaca jiraale hawayda aan dhacay maxaa hatufka ugeey daraawiixi firinimay wax badan hanatay reerkiisa waxay lahaan fariireenba waa huba doorale hada qabiil nimaan ahayn hiba miyuu dhiib nimaan laysoo taagaynin waa lagu habsoobaye harga waaxidii baan ku jiray tuugahaysalehe hanqarkii rasaasta wadnu la halcanayo iyaguba halaagan baday lahundhurayaani warguutooyinkii loo humay hadafka raaceene ma way helin karayaan anfaco heliba maya qamaanow hawaada meelsan baa lagu hagaajaye hidku waa hidkii idin khatalay haradigeedkiiyo hanankiina nimankii qiin weydinkii hura haddaad diinta soo haybisaan kuma hungowdeene hadan waxaa idinku guuray hagafkii gaabnaayee hadalka keena diid buu maqlaayee hayad kale moo hadeer iyo hadeer golqalla halaaba keenaaba hamaan idin subilaha halabka ruurkeede haleelo yinkaa idinku filan hotanuga hadeer iyo hadeer golqalla halaaba keenaaba hamaan idin subilaha halabka ruurkeede haleelo yinkaa idinku filan hotanuga anaan idin hallayan sidii hogii bariye hareertiina waan dhigi waxaad ku himbilyotaane intaad higis dhan soo qaadataan halaacna soo raacsan ilaah ku naxariiso